الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. waxaan maalmahan soo wadnay annagoo ah hay'adda daryeelka carruurta Soomaaliyeed ka shaqeeya arrimaha carruurta danyarta ah, agoonta ah, darbi jiifka ah. barnaamijka khayriga ah ee aad nagu taqaaneen ee aan qaban jirnay sanad walba haddaaya aan ku ciidsiin jirnay carruurta agoomaha ah iyo kuwa danta yar. barnaamijkaas aan sanadkan ugu talagalnay inaan 700 oo carruur ku ciidsiino kuwaas oo ku kala nool 5 maamul gobol magaalada madaxyadooda Dhuusamareeb, Jowhar, Baydhabo, Kismaayo, Garowe iyo caasimadda Muqdisho ah. barnaamijkaasi si qurux badan buu noogu socdaa. walaalaha khayriga ah waxaan ugu baaqaynaa inaad ka qayb qaadataan oo aad ka farxisaan carruurta. ma jirto wax ka farxad badan cunug aad ka farxisay isagoona farxi lahayn. waxaa jira dad fara badan oo danyar ah oo aanan awood u lahayn oo aanan iska bixin karin maalintaas sida carruuraheenu u farxayaan una farxi karin aan ka farxino dadkaas. waxaa jira kuwa agooma ah oo aabayaashood aysan nooleen. haddii carruurteenu aabayaashood u nool yihiin oo ay u shaqeeyaan, waxaa jira kuwa agoono aabayaashood aysan nooleen oo dhibaatooyinka dalka ka dhacay iyo ismasiibooyinka ay saameeyeen. marka dadkaas inaan ka farxino muhiim weyn. annagu haddaan nahay hay'adda daryeelka carruurta Soomaaliyeed waxa ugu weyn aan isu xilqaano waxa weeye inaan dadka muxsiniinta ah wixii wax la bixi kara iyo dadkan masaakiinta ah inaan u dhaxayno. waxaan nahay connectionkii labadaas u xidhay. labadaas saan isku gaarsiin lahayn kuwii khayriga ahaana waxaan ka soo qaadno si ammaan leh oo wanaagsan oo sharaf badan aan u gaarsiin lahayn kuwii u baahnaa. waa shaqada ugu weyn aan qabanno. shaqadana ma aha midaan hadda bilownay, waa midaan horey u soo wadnay muddo ilaa 2011 bil noo soo socotay. marka barnaamijka aan ka qayb qaadano waa waxaad naftaada ka qaadaysaa, naftaada u qaadaysaa. waa sadaqa aad la baxayso. u bixi waalidka, u bixi oo sadaqa jaariya uga dhig. marka walaalaha sharafta leh intaas aan ku boorinayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.